waddankan wuxuu u baahan yahay institution building wax la dhaho system waddan in la dhiso u baahan yahay weli waddanka waxaa moodaa gacmo kooban inuu ku jiro weli oo uusan u soo daadegin masiirkiisa iyo taladiisa bulshada rayidka qaybeeda kala duwan dhalinyarada kaliya maaha ururada haweenka dhaqaalaha badan iyo maaragtay waxyaabaha la isku xiriyo oo shuruudaha ah ee temporary-ga qofka wuxuu samaysan kara ama weyni kara ah in meesha laga saaro dhalinyarada fursadda looga dhigo dadku aqoontooda ama wax la mid lagu saleeyana waa isleeyahay in wax lagu xusho in nidaamka dawladeed naftirkiisa uu cadeeyo dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin sida qoonda dumarka ay leeyihiin dawladda ay sheegtaa ama siyaasadda lagu sheegaa sidaas camal waa in dhalinyaradana loo cadeeyaa qoondada ay ku leeyihiin siyaasadda dalka loo cadeeyaa oo awoodooda waxay tahay meesha ay ku muujiyaan loo baahan yahay oo loo sameeyo forumyo ay kaga hadli karaan waxyaabaha iyaga ay u baahan yihiin dhalinyarada arrimaha bulshada go'aan gaaritaankeeda waxay u mid noqon karaan in odayaalka iyo dhalinyarada wada shaqeynaya dhex marta odayaalkan ay go'aanka ay qaadanayaan mar walba in dhalinyarada ay soo celiyaan dhalinyarada ayagana fikirkoodii aragtooda ay ka dhiibtaan taasay go'aan qaadashada dhalinyarada qayb ugu noqon karta bulshada dhexdeeda taas horta iyada muhiim ah hobaan iska day walba iyada qayb qaadan karan hob odayaalka iyo dhiirgelin ka haysan oo ka dhiirgeliyaan siyo arintii xaliisan musiyo qaabkii wala xaliisan taw baran waa odayaalka boo ka dhiirgelin dhalinyarada meel la sugnaadeen dhalinyarada soo wala intii dhiirgeliyo la hakiyo qaabkii wala xaliisan fahayaan la tus hobun tusinayo silay ay odayaalka wala xaliyaan dhalinyarada meel la sugnaadeen waayo wala is dagaal dhib ka haysto biyo nan dhibrudoon inta xaliimay laakiin qaabkii wala xaliilaa intii la soo baahan odayaalkan ka baaqala intii qaabkii wala xaliisan qaabkii is dhiirgeliya qaab arrimaha bulshada dib imse dheef iyo qayb qaadaan intii tusiyaan odayaalka dhaqanka la qaaday